kulanti wanaagsan khiyaarta nala socota idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada taxliilinta wararka caawa waa 4 bisha Oktoobar sanadka 2025 qodobadaan idin hayana waxaa kamid ah magaalada go'doonsan ee Gaza ayaa lagu soo waramayaa caawa in ay ka nasanayso hogaanka madaafiicda iyo duqeynta ay ku hayeen ciidamada Israa'iil kadib markii dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Falastiiniga ay aqbaleen hindisihii uu soo jeediyay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump. Talaabadan ayaa loo arkayaa geedi socod dhinaca nabadda loo qaaday halka dadka qaarna ay ku fasirayaan kooxihii gobonnimo doonka ahaa ee Falastiiniyiintu inay isdhiibeen. Sidaa ma loo fasiri karaa? Barnaamijka ayaan ku faaqidayaa khiyaaray. dhinaca kale marka la fiiriyo madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa caawa digniin u jeediyay dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Falastiiniyiinta waxna uu ku yiri dhaqangelinta waxyaabaha heshiiska uu qoraya waa inaad si degdeg ah u gashaan anigu ma aqbalo ayuu yiri dib u dhaca waxaan ahay nin shaqo oo ballan leh wixii lagu ballamo waa in la fuliyo haddaba maxay tahay sababta hal dhinac oo kaliya oo cadaadiska u saarayo barnaamijka ayaad ku ogaan doontaan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu si degdeg ah isugu yeeray laba kamid ah golahiisa wasiirada wasiirka amniga gudaha ee Itamar Ben-Gvir lagu magacaabo iyo wasiirka maaliyadda ee Smotrich iyadoo uu ka baqdin qabo in ay carqaladeeyaan heshiiska xabad joojinta ah ee degdega lagu gaaray haddaba maxay tahay aragtida mucaaradka Israa'iil marka la fiiriyo labada nin barnaamijka ay banaanka keeneen iyo waliba cabsida laga qabo in ay fashilayaan heshiiska barnaamijka ayaad ku ogaan doontaan caawa waxaa inta aan ku dari doonaa dowladaha Masar iyo sidoo kale Turkiga ayaa tallaabo ay qaadeen waxaa lagu micneeyay fariin dadban oo hanjabaad ah oo ku socota nidaamka Israa'iil xilligeedii socodka nabadda ee gobolka Bariga Dhexe hadda aad loo baadi goobayo maxay tahay fariinta dadban ee dhanka militariga oo labadan dhinac ay direen caawa si dadban ay u falanqeynayaan telefishinna uu ka mid yahay Al Jazeera magaalada Sharm el-Sheikh ee waddanka Masarna waxaa la filayaa in 5 iyo 6 labada maalin ee soo socota ee bishan Oktoobar lagu qabto kulan foolka-fool ay isugu iman doonaan mas'uuliyiin ka socota nidaamka Israa'iil iyo waliba dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Falastiiniyiinta dowladda Masar ayaa ku dhawaaqday martigelinta shir lagu dhameynayo dhibaatooyinka gobolka Bariga Dhexe aan ku horeeyo magaalada go'doonsan iyo wararka ka imaanaya nidaamka Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa si kumeel gaar ah inay u joojiyeen duqeyntii istaba joogga ahayd ay ku hayeen magaalada go'doonsan muddo 2 sanadood ah halkaas oo ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 65,000 halka 170,000 oo kale ku dhawaadna ay ku dhaawacmeen lacago balaayiin dollar ayaa lagu soo waramayaa dagaalkaasi in lagu baabi'iyay iyadoo guud ahaanba magaalada haatan ay u egtahay gelgelin maran oo meel kasta ay burbur uu ka muuqanayo tallaabadan Israa'iil ay ku dhaqaaqeen ayaa ku soo aadaysa kadib markii kooxaha gobonnimo u dirirka Falastiiniyiintu ay aqbaleen in la joojiyo dagaalka isla markaana ay qaataan hindisaha Trump uu soo jeediyay ee ku saabsan sidii colaadaasi loo soo eebyi lahaa dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in uu kulan degdeg ah isugu yeeray wasiirkiisa amniga qaranka nidaamkaasi Itamar Ben-Gvir iyo Smotrich oo dhinaca maaliyadda ku magacaaban isla markaana kala hogaaminaya laba xisbi oo mayl adag oo nidaamka Israa'iil ka tirsan haddaba tallaabooyinka laga baqayo ayaa wararku tilmaamayaan in ujeedadu ay tahay in labada nin ay carqaladeeyaan heshiiska xabad joojinta isla markaana dagaalka ay soo horiyaan taasi oo meesha ka saari karaysa ballanqaadyadii Netanyahu ee ku saabsanaa in uu meel marinayo hindisaha uu soo jeediyay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump sida uu qoray telefishinka Channel 12 ee Israa'iil ayaa soo wariyay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isugu yeeray wasiirka amniga gudaha Itamar Ben-Gvir iyo wasiirka maaliyadda Bezalel Smotrich kulan degdeg ah sida ay uga wada hadlaan baa la yiri xaaladda cusub ee ka dhalatay in kooxaha wax iska caabintu ay aqbaleen jawaabtana ay ka bixiyeen qorshaha madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ee lagu joojinayo dagaalka magaalada go'doonsan iyadoo lagu isku dhaafsanaya baa la yiri
maxaabiista labada dhinac ay kala hayaan. qoysaska maxaabiista Israa'iil ayaa muujinaya walaac xooggan iyagoo ka cabsi qaba in Ben-Gvir iyo Smotrich ay carqaladeeyaan wadaxaajoodka haatan socda, halka dhinaca mucaaradka Israa'iilna ay ku tilmaamayaan labada nin inay yihiin kuwa nugul haddii aansan loo yeelyeelin aanay suuragal noqon karin baa layidhi in dagaalkaasi iyo weliba xabad joojinta ay carqaladeen ku sameeyaan. Yair Lapid oo hogaamiya mucaaradka Israa'iil ayaa ku dhaliilay labada wasiir inaysan awood u lahayn inay fashilayaan heshiiska Trump, isagoo intaa ku daray in aqlabiyadda shacabka iyo kiniisad waa baarlamanka Israa'iil in ay taageersan yihiin qorshahan oo ay suuragal tahay in si degdega loo dhaqangeliyo. Lapid ayaa bartiisa X qoraal ku soo qoray markii ay soo baxeen Sabtida. qoraalkan waxa uu yidhi maalinta nasashada Israa'iiliyiinta aad ayay u maqlayaan hanjabaadahooda, xasuustana dadka wax badan ayay haysaa, sidaa daraaddeed suuragal maaha inay qaadaan tallaabooyin kasta oo carqaladayn kara dhinaca heshiiskan iyo wadaxaajoodka. iyadoo taa laga baqanayo waxa uu Netanyahu isugu yeeray labadaasi wasiir si uu uga helo ogolaanshiyo dhammaystiran. dhinaca kale, dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta Falastiiniyiinta Islaamiga ayaa shalay ku dhawaaqay in ay u gudbiyeen jawaabtooda rasmiga ah ee ku saabsan qorshaha Trump, iyagoo ogolaaday in la sii daayo dhammaan maxaabiista dhinaca Israa'iil ay ka hayaan ee nool iyo kuwa dhintay labadaba. ururku waxa uu sidoo kale tilmaamay inuu ogol yahay in maamulka Gaza uu ku wareejiyo guddiga madaxa bannaan ee Falastiiniyiinta, kaasi oo ka koobnaan doona xubno aqoon-yahano iyo farsamayaqaano ah, lana dhisay baa layidhi iyadoo la kaashanayo dalalka carabta iyo waddamada islaamka sidii magaaladaasi dib loogu soo celin lahaa haykalkii iyo noloshii ka jirtay. madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa bartiisa Truth Social ku soo qoray in jawaabta kooxdu ay bixisay ay muujinayaan diyaarkay u leedahay nabadda waarta iyo sida ay uga qayb qaadan lahaayeen labada dhinac, iyadoo lagu baaqay in Israa'iil ay si degdega u joojiso duqaymaha magaaladaasi ka socda ee muddada hayay si loo xaqiijiyo nabadda iyo weliba in la sii daayo maxaabiista. wararka ka imaanaya gudaha Israa'iil ayaa muujinaya in uu jiro kala qaybsanaan siyaasadeed oo sii kordhaysa, iyadoo qaybaha badan ee bulshada iyo siyaasiyiinta dhexdoodu ay u arkaan qorshaha Trump inuu yahay waddada keliya ee lagu gaari karo xasilooni laguna soo afjari karo dagaalka muddada dheer ka soconaya magaalada go'doonsan. madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa digniin kale u jeediyay dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Falastiiniyiinta, waxaana uu yidhi haddii ay dhaqan gelin waayaan heshiiska ay ballan qaadeen inay fulinayaan in ay ka jawaabi doonaan wixii cawaaqib xumaa oo ka dhasha. waxauu yidhi anigu ma aha nin jecel daaha iyo caajiska, waxaan ahay nin si degdega rabo wax kasta inay ku hirgalaan. socda oo wixii la idin diray fuliya haddii ay dhab idinga tahay, haddii kale waad ka shallaayi doontaan, ayuu yidhi qoraal uu soo saaray Trump. sida uu qorayo telefishinka Sky, madaxweynaha dowladda Maraykanka Donald Trump ayaa uga digay dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Falastiiniyiinta Islaamiga ah in aysan dib u dhigin hirgelinta qorshaha nabadeed ee magaalada go'doonsan, isagoo sheegay inuu uga jawaabi doono si adag haddii ay la yimaadaan hakin ama caqabad cusub oo heshiiskaasi taaban karaysa. hadalkani waxa uu ku baahiyey bartiisa Truth Social oo ah mareeg uu si gaara Trump ugu soo bandhigayo ajandooyinkiisa siyaasadda, fikradihiisa iyo aaraadiisa la xiriira waxyaabaha uu damacsan yahay. kooxdu waa inay u dhaqaaqdaa si degdega oo ay dhaqan geliso, haddii kale dhammaan waxaa suuragal ah in ay furaan waddo kale. anigu ma aqbali doono in la hor istaago qorshahan, waad aqbasheen, si degdega ku hirgelaya ayuu ku leeyahay qoraalkan. madaxweynuhu waxa uu ammaanay go'aanka Israa'iil ee kumeel gaarkay u joojisay duqaynta magaalada go'doonsan si loo fududeeyo sii daynta maxaabiista iyo weliba in la badbaadiyo wejiga koowaad ee heshiiska nabadeed, waxaana uu ku adkaystay Maraykanku inuu si cadaalada ula dhaqmi doono dhammaan dhinacyada, balse aysan ogolaan doonin in magaaladaasi mar kale ay noqoto khatar weyn oo adduunka taabanaysa. Trump ayaa sidoo kale u sheegay janalka 12aad ee Israa'iil in qorshaha magaaladaasi hadda uu ku socdo waddadii hirgelinta, waana guul weyn oo taariikhi ah. dhammaan dhinacyadu waa ay
nala jiraan buu yidhi waxaana u soconnaa dhanka fulinta heshiiska si wanaagsan loo dhaqangeli lahaa ayuu hadalkiisa ku daray. waxa uu ku eedeeyey ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu in uu meel dheer u dhaaf geeyo dagaalka oo ay adag tahay in si degdeg ah wax looga qaban karo, laakiin waxa uu yidhi weli waxaa jirta fursad lagu dhammayn karo colaadda iyo sida wax loo qaban karo. dhinaca kale magaalada Qaahira ee waddanka Masarna waxaa la filayaa dhowaan inuu ka dhaco ashir ballaaran oo isugu iman doonaan dhinacyada la doonaya in heshiis lagu dhex dhigo magaalada go'doonsan ee dagaalku muddada dheer uu ka dhacayay. ashir la filayo 5 iyo 6 bishan in uu ka dhaco magaalada loo dalxiis taga ee Masar ee Sharm el-Sheikh ayaa la filayaa inay isugu yimaadaan mas'uuliyiin kala matalaya Falastiiniyiinta dagaalamayay iyo dhaqdhaqaaqa nidaamka Israa'iil ee gobolka bariga dhexe ku calanwalaynaya. dhinacyadan ayay dowladda Masar gaar ahaan wasiirkeeda amuraha dibadda Dr. Batri Cabdilcaadi waxa uu ku sheegay in ay hadda doonayaan in la jeexo waddadii heshiiska rasmiga ah dowladda Masarna labada dhinac ay soo bandhigayso. dhinaca kale marka la fiiriyo fariinta ka timid maalintii shalay ahayd dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Falastiiniyiinta maxay tahay waxyaabaha laga dhex akhrisan karo, maxayse sidoo kale tahay dhinaca Israa'iil kubadda loo laaday ee muhiimka ah inay si weyn uga feejignaadaan. jawaabta dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Falastiiniyiintu ay ka bixiyeen qorshaha Trump waxaa lagu joojinaya dagaalka ayaa dhalisay soo dhawaanshiyo caalami ah iyo weliba khubarada difaaca iyo weliba sharciyaqaanada Masar waxay ku tilmaameen jawaab culus oo 3 fariimood oo kala duwan diraysa, taas oo jihooyin kala duwan ku socota marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqa Xamaas waxyaabaha ay sameeyeen. kooxdu waxay caddaysay baa la leeyahay in ay diidan tahay in aanay diidanayn nabadda iyo dadaalada Carabta iyo wadamada Islaamka ee lagu joojinayo dagaalka, taas oo keentay in Maraykanka iyo dalal kale ay isku soo dhaweeyaan arrintan. fariin loo diray shacabka Falastiiniyiinta ayaa meesha ku jiray. kooxdu waxa ay tilmaantay in ay diyaar u tahay in ay tanaasusho si dadka ay nolol u helaan oo aan loo dawargoyn. halka fariin kale ay ku socotay nidaamka Israa'iil, kooxdu waxa ay fariin u dirtay baa la yidhi Netanyahu iyadoo saartay cadaadis siyaasadeed oo caalami ah maadaama ay ogolaatay sii deynta maxaabiista haddii ay diido heshiiskaasina ay muujinayso in uusan daryeelin guud ahaanba nabadda islamarkaana uusan ka fikirin qoysaska dadkooda la haysta ee Israa'iil. wejiga cusub ee wadaxaajoodka ayaa sidoo kale noqonaysa fariin kale oo mug leh. Masar ayaa ku dhawaaqday inay martigelin doonto ashir caalami ah kaasi oo ka dhigan markii ugu horreysay kooxdan Falastiiniyiintu inay Israa'iil ku qasbeen inay soo geliso miiska wadaxaajoodka si ay arrintaasi u meel mariyaan. dhinaca kale dowladaha Masar iyo Turkigu waxa ay fariin u muuqata hanjabaad dadban u direen nidaamka Israa'iil marka la fiiriyo tallaabooyin tababar dhinaca badda ah oo ay si wada jir ah u sameeyeen ciidamada labada waddan, sida uu ku warramayo telefishinka Al Jazeera. dalalka Masar iyo Turkiga ayaa si wada jira fariin u muuqatay digniin u diray Israa'iil kadib markii militariga labada dhinac ee baddu ay sameeyeen marka la eego baa la yidhi dhoolatus military oo saaxiibtinimo ah oo badda gunteeda ay ka samaynayeen iyo oogada sare. muuqaalo la baahiye ayaa muujinaya dhacdooyinkan inay dhaceen 22 ilaa 26 bisha Sebtembar ee sanadkan markii ugu horreysay dib loo soo celiyay xiriirka difaaca Ankara iyo Qaahira tan iyo sanadkii 2013. afayeen u hadlay wasaaradda difaaca waddanka Turkiga waxa uu ku baaqay in tani ay tahay fariin cad oo aan laga gorgortami doonin in Israa'iil sidii ay doonto ay ka yeelato gobolka bariga dhexe.